markale ku soo dhawaaw casharada taxanaha ahaa ee bara iibka tooska ah waxa weeye waa barahaga Xuseen Maxamed Geedi waxaan filayaa saddexdii cashar ee hore inaan hore u qaadatay casharka saddexaad wali waa diyaar garow inta aan ganacsiga la qaban waxyaabaha u baahan tahay waxa kamid ah communication macnaheedu maaha in adigu hadal badan tahay communication-ka macnihiisa ma aha in adigu hadal badan tahay qof hadal badan ma aha communication-ku muxuu yahay communication-ku waa in adigu aad tahay dhageyste wanaagsan waa muhiim intaana hadlo wanaagsan noqo dhageysto wanaagsan kolka aad qofkani og tahay baahidiisa iyo waxa uu rabo in laga shaafiyo ayaa ka shaafin kartaa hadal badan Soomaali waxay tiraahdaa han ma buuxiso sidoo kale xigmad baa ku jirto laba dhagood ayuu Ilaahna siiyay taas macnaheedu waxa weeye inta maadaama hal afleenahay waa inta aan hadlayna laba jibaarkeed waa inaynu wax dhageysanaa ganacsigan waxa kamid ah communication waxa weeye qofka kale oo dhageysto marka la dhageysanayo lama rabo dhagal leer u duleela waxa lagu dhageystaa dhagal laab u duleela adigoo raba inaad fahamtid dareentid qofkani waxa uu kala hadlayo ayaad dhageysanaysaa kolka kadib waxaad helaysaa ku fududaanaya jawaabta ku haboon hadaba waxa muhiim ah sidoo kale marka hadlaysid luqad ku haboon ganacsiga luqad akhyaarnimo ah eriyadeeda aad looga fikray ku haboon wax gudbina wax sheegid ah hadal badan han ma buuxiyo ku hadal eriyo yar oo xigmadaysan oo qofka aad ugu gudbin kartid fariinta aad wadid maadaama aad fariin wada tahay aad ba u maasantiin tani intaan program noocan ku kulmayno aniga oo ah Xuseen Maxamed Geedi waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo iyo nooli kulanta insha Allah aad ba u maasantahay ha hilmaamin like subscribe YouTube-ka sidoo kale Facebook-gana like share gray tani intaan program noocan ku kulmayno waxaan kaga tagay nabadgelyo iyo nooli kulanta insha Allah